waxay ahayd 13 Maarch 2013 waxaan ku socday goobteeda waxbarashada aan markaasi dhiganayay waxaan ahaa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Yusuf Al-Kawnayn waxaan isbaranay in magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan markaa ka bacdi waan isbaranay isna wuxuu ku socday goobtiisa wax ka baranayay ka bacdi waan isbaranay lambarada waan kala qoranay waan soo wada xiriirnay waxay ahayd maalmo farxadeed maalmo jacayl maalmo farxadeed ayaan oo bilaabmay sidiisii u socotay waxaan soo wada qaadanay nolol qurux badan waxaan wada marnay nolol farxadeed toogu fiican wuxuu ahaa Cabdiraxmaan halka kaliyaata ee aan ka helo farxad ma garanayn laantiisa noqon karo manaan garan lahayn saan noqon lahaa laakiin waxa la soo gaaray 2014 waxa igu geeri ku timi qof ka mid ah familkayga oo dadkii igu qaalisanaya wuxuu ahaa qofkii kaliyaata iga meeray murugada aan agtiisa ku tagay dhamaan ila qaybsanayay iwaaninay inaan adduunkan cid ku harayna ii sheegay waxay sida ahaataba maalmaha kamid ah ayuu la soo hadlay wuxuu guraaday waxaan rabaa inaynu kulano ayaan ku iraaday waxaan isku nimi gooban ku kulmi jirnay ayaan isku nimaadnay ka bacdi waan wada sheekaysanay sheeko dheer ka bacdi waxaanu uu ii sheegay inuu galay safar oo yiri xagga Ethiopia tagaya oo muddo dhowr badan bay dacwad uga socotay wuxuu ii sheegay inuu tagayo waan ka xumaaday runtii maxaa waan dareemay xanuunka uu leeyahay laba qof oo kala fogaaday oo jecel ka bacdi hadana waa khasab oo danta tiraaday oo waan ogolaaday marka ka bacdi waxay igu yiraaday bari baan baxaya hayban ku yiraaday waxaan rabaa inaan ku sii saaro meesha aad ka baxayso ama safarka aad geliso halka aad ka raacayso gaariga haybi igu yiraaday waxaan subaxdii u soo kicitmay halkii istaankii laga soo raacay gawaadhida waan saaray adigu uu gaarigii buu fuulay uu la dhaqaaqay anuna gurigeyga iskaga laabtay muddo adigu malaha waxoogaa adigu dhowr saacadood kadib adigu hal saac iyo bar meelaha kadib ayuu soo qaraacay wuxuu igu yiraahday wax sii socda sheekh hayban ku yiraahday insha Allah Ilaahay ku nabad geliyo duceeyay duka bacdi adigu saacadii bad ay dhaaftay oo ay saacad kala bixsantay ayaa la soo qaraacay lambarkaas maad garanaysaa lambarkii ayuu ku yiraahday lambarkaas waxa ugu dambeeyay qof soo qaraacadiga ugu dambeeyay marka maad garanaysaa qofkaas haaban ku yiraahday waa dhaawac waxaana loo maleynaya inuu yaalo inuu waliba yahay dhimasho ka bacdi waan naxay waxaan sameeyay waan garan waayay waxaan is iraahday horta mobilka mujigoor iga dhacay meeshii waan ku miir doorsoomad muddo bar ahban meeshii jiifay waan iskala garanayaa laakiin ma hadli karo waxba ma celin karo ma jawaabi karo ka bacdi waxa dhacday adigu dadkoodii baa la hadlay waxaan la soo xaqiijiyay inuu dhintay Allah u naxariisto marka ka bacdi waxaan ku waayay halkaas dhammaan farxadihii noloshaan ka lahaa waxa kaliyaata aan haysto wuxuu ahaa ma haysan cid kale wuxuu ahaa jacayl rasmi ah oo aan la lahaa qofkaas Cabdiraxmaan wuxuu qaatay dhamaan urugyada jidhka meel kastana isaga ayaa digay muu ahayn qof khiyaano laawa manu khiyaamin muu ahayn qof igu sabeeyay khiyaano ama been waxa qof si rasmi ah jecel ana waxana qof si rasmi ah anu jecelahay waxa jecel qofkii ugu horeeyay jecelaado noloshayda intii ka harsanayd